nolosha waxaad casharka baranaysaa markii aad faqri aragto, markii aadan haysan wax aad cunto iyo meel aadan seexan, markuu xanuun ku qabto aad weydo daawo aad isticmaasho, markii aad aragto dhammaan dadka oo wada labisan faraxsan wax baranayaan adigana baahi darteeda aad la socon la'dahay, waxaad noqonaysaa qof jir ahaan iyo niyad ahaan u noolayn. noloshu maalinba waji cusub ayay leedahay. adiga haddii aad ku nooshahay nolol ka sareysa nolosha faqriga, dheh alxamdulillaah, una naxariiso dadka faqriga ah, u kaalmeey waxna si ay u helaan nolol fiican oo ay kaga baxaan nolosha adag. alla uma uusan waayin kuwa baahan wax ay cunaan iyo meel ay seexdaan. waa imtixaan uu ku imtixaanaya rabbi addoommadiisa. aan isku naxariisano, kadib allah ayaa noo naxariisanaya. annaga waxaan lacag ku bixinaa si aan maqaayadaha ama hoteelada aan wax ugu soo cunno, laakiin guryaheena lagama weyin wax aan cunno. waxaa jira dad aan haysan lacag ay wax ku cunaan, guryahoodana aan wax laga karin baahi jirta awgeeda. ee aan u naxariisano oo aan caawino masaakiinta si uu rabbi noogu naxariisto.